السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتم عن وناكسن صاحب يال مالك السؤال كجوتين دولة دافيدة مقعي وانجنير أحمد فارح halkaan nagala socotaan waa military academy soo galay mid high school soo noqdo wanaag صاحب yaal saaxiibo badan oo kamid ah bahda ku xiran barteena YouTube ee military academy soo galay mid high school ayaa waxaan soo weydiiyay su'aal ah sidee muuqaalada loo saaraa waxa la yiraahdo stroke ama xariiqinta lagu wareejiyo adigoo isticmaalayo software-ka la yiraahdo Premiere Pro. haddaba saaxiib yaal waxaan rabaa inaan ka jawaabo su'aashaas ay soo weydiiyeen saaxiibada ku xiran barteena YouTube ee ah sidee muuqaalka loo saaraa stroke ama frame lagu wareejiyo. haddii aad la yaaban tahay stroke oo aad leedahay maxaa laga wadaa stroke waa sidan oo kale hambaliyo hagaag hadda waxay ila tahay inaad fahantay waxa laga wada stroke muuqaalkan ayaan kugu tusi doonaa farsamadii aan muuqaalkaaga ku saari lahayd stroke haddaba midna aan ku xasuusiye waa ay kala duwan yihiin waxa la yiraahdo frame-ka iyo sidoo kale stroke guud ahaan muuqaalka ayaa lagu wareejiyaa halka frame-ka muuqaalka geesaha waxay laga baneeyo kor iyo hoosna waxay laga baneeyo farsamada ayaa kugu tusin doonaa. haddaba saaxiibayaal si aad u saartay muuqaalka stroke oo horreyn muuqaalka soo jiidaysa qaybtan timeline ee wax lagu jarjaro ayaa muuqaalkeen doontaa muuqaalka markaas sida halka qayb timeline aan u keenno codka muuqaalka waa iska xirinaynaa sababtoo ah hadda codka muuqaalka wax baahiyo uma qabno adigana hadhow kuu furnaan karaa laakiin aniga muuqaalka codkan in muuqaalkiisa la maqlaan rabin markaas sidaas awgeed ayaa muuqaalka mute iskaga saaray waxaa sameynaa haddaba saaxiibayaal si muuqaalkan aan u saaro stroke ugu horreyn muuqaalka ayaa select garayna markaa muuqaalka select garayso waxaa tegaysaa qaybtan kadibna waxaa halkaas soo furaysaa kadibna waxaa ka dooranaysaa effects haddii halkan effects ka weydina waxaa tegaysaa window halkan waxaa kasoo dooranaysaa effects intaas oo keliya waayo halkan markaa soo dooratay shaashada aan yarta insaan kugu soo baxdo halkan waxaa qoraysaa waxaa la yiraahdaa grade ayaa ku qoraysaa grade marka ku qortid waa tana grade sidaan ayay kugu soo baxaysaa ayada ayaa soo jiidaysaa muuqaalka dulkeena waa kusii duldaynay markaa kusii duldaynay waxaa ujeedaa shaashada waxay isku bedeshay ayadana qaab xisaab camal ayay isku bedeshay ama maarata shabaq ayay isku bedeshay shabaqan ayaa waxaan rabnaa markaa inaan hadda ka samayno stroke midna aan ku xasuusiyo muuqaalkaaga sequence-giisa waa inaad taqaanid cabirka muuqaalkaaga aan marka hore ku sameeyay waa inaad taqaanid haddaba markaa inta aan sameeyno saaxiibayaal waxaan sameyn doonaa waxaan tegaynaa halkan window kadibna waxaan soo dooranaynaa effect control ee halkan ka raadinaynaa hagaag effect control markaan soo galno halkan hoos ayaan soconaynaa waxaan ka raadinaynaa grade halkan kusoo darsanay grade halkan kusoo darsanay waa taraa kadibna waxaan sameyn doonaa qaybtan ugu horeyso ku qoran tahay anchor halkan ku qoran tahay 96.00 ku qoran tahay waxaa ka dhigaysaa hal zero kasoo horjeedkeedana waxaa gelinaysaa zero labadaas qaybood markaa zero ka dhigtay kadibna waxaa imaanaysaa qaybta ay ku qoran tahay corner halkan ay ku qoran tahay cornerta marka waxaa waaye sequence-gii aad marka hore soo qaadatay cabirka muuqaalkaaga oo marka hore soo qaadatay ee waa qaybta cornerta leedahay waxaa sameynaa aniga muuqaalka wuxuu ahaa 19 20 qaybta kalena wuxuu ahaa 10 waa inaad xasuustid muuqaalkaaga sequence-giisa waa inaad xasuustid is markii aan sameyno saaxiibayaal waxaa ujeedaa muuqaalka darta sidoo kale haddii aan hadda waxa meesha hadda muuqaalka soo yareeyo kadib hadda click sidoo kale aan muuqaalka yareeyana waxaa ujeedi kartaa muuqaalka waxa ku wareegsan stroke yar oo cad ku wareegsan error kalena waa uu jiraa oo hadda muuqaalka bale yiraahdo looma jeedaa muuqaalka bal hal mar muuqaalka bale dhaho waa ka waxaa ujeedaa muuqaalka looma jeedaa si aad ogaato in muuqaalku shaqeeyaan waxaan sameynaa codka ayaan furaa mar kale aan bale dhaho hambaliyo waa ka waxaa ujeedaa muuqaalkii codkiisu waa uu shaqeynaa asagana looma jeedo errorkaas asagana see ku xaliya si lamid stroke see ku weeraysan karaa ku yaraysan karaa kalarkiisa iskaga bedeli karaa isla muuqaalka ayaa ayadana ku xalinaynaa wax weyn maahan waxaan sameynaynaa halkan hoos ayaan u soconaynaa halkan ay kugu qoran tahay borderku waxa waaye stroke size-ka waa haddii hadda aan saas xag u sii weynayo waa ujeedaa haddii aan sii yareeyo waa ujeedaa adiga markaa qiyaastii waxaa la isticmaalaa 30 29 14 hadba cabirka aarita ay maartay ku xirantahay laakiin aniga waxaa ka dhiganaa 30 ilaa 31 daas kale ayaa maartay ka dhiganaa cabir loo jeedi karo taas marka xagsa uu soo gudbo qaybtan hoose ee cad halkan waxa waaye kalarka stroke haddana wuxuu yahay white ama cadaan si aad taqaaniin halkan marka aan soo furo inta badan waxaa la isticmaalaa xasaan ama guduudkan hoose markaas saa u soo jeeda halkan aan keeno hadda okay ayraado stroke wuxuu isku bedelay guduud ayuu isku bedelay midna ku xasuusiyo haddii ay jirto logo aad isticmaashid oo qolo u shaqeeyo logodooda coloriska aad inaad isticmaashid waa isticmaali kartaa qalinkan ay drop ay ku dhufanaysaa kadibna colorka aad ayaa markaas soo dooranaysaa laakiin haddii aysan logo jirin waxa waaye inta badan waxaa la isticmaalaa aniga inta badan waxaa isticmaalaa jeclahay guduudka ama cadaanka inaan isticmaalo labadaas midkood inaan isticmaalo ayaan jeclahay haddaba saaxiibayaal inta markaas soo xalinay oo hadda muuqaalka stroke aan saarnay waxaa hadda meesha ka maqan ayaa waxay tahay muuqaalkii looma jeedo see u dhigi karaa muuqaalkii loo jeedo ويسألنت هل كان يكون قرنتها بلند مود هل كان يكون قرنتها صفريسة قيمتها ننتا صفريسة ننتا هوس مش هوس يكون قرنتها نورمال يكون فريسة كلي هذا مقالك ولوجي لا فالمكان عن مقالك بليدو وجد مقالك أو شقينا كلية وكحرين هاي كلام
si lamid stroke saaran yahay meeshii aan rabno ayaan maartay muuqaalka ula qaadi karnaa stroke iyo maartay waa la soo weyni karaa sida wala soo ekeysi karnaa gees waa geesi karnaa waa yareysan karnaa marka taas waxay ku saaleen marka barnaamij reaction ka bixin oo kale inaad barnaamij reaction ka bixin halka saa dhigtid adiga muuqaalkaaga geeskan kala soo dhigtid si la mid ah stroke waa ay ku saaran tahay taasina halkaas ay maartay ku fududeeyo doonto saxbel waxaan filayaa inaad fahantay sida muuqaalka loo saaro waxa la yiraahdo stroke ama borderka borderkuna wax kala maahan waa muuqaalkaas kalarka aan ku wareejino oo kaliya waa borderka lagu sheegaa ee wax kala maahan haddii aad ina weynaystina waa weynaysan kartaa oo meeshii border size ka bis aad tagaysaa oo ku qoran border halkaas ayaa maartay sababtan halkan border ku qoran tahay sodon ku noo yahay waa ka sii adiga waa ka dhigi karnaa waa ka saamay muuqaalka markaad dartaa stroke waa u saaran yahay waa sii yareysan kartaa borderka wax yaro kale waad ka dhigi kartaa adiga ayay maartay kugu xiran tahay hadba borderka u baahan adiga ayay maartay kugu xiran tahay marka sidaas oo kaliya ayaa Premiere Pro lagu saaraa waxa la yiraahdo stroke waxa jiro waxa la yiraahdo frame ayadana farsamooyin kale gaar ah oo lagu saaray ay leedahay sidoo kale waxa la yiraahdo sequence waa inaad iska saxdid ka hor inta aadan muuqaalka dalbin stroke-giisa sababtoo stroke marka dalbay waxa lagu leeyahay sequence aad soo qaatay sheeg hadba cabirka aad soo qaatay ku xirna markasta waxa xasuunataa sequence aad soo qaatay kaas markasta maskaxda ku hayo ku saaran markasta muuqaalka inaad saartid stroke waliba farsamada isticmaal software-ka la yiraahdo Premiere Pro hagaag waxay la tahay inaad fahantay waxa la yiraahdo stroke oo maanta kadib ay kugu soo noqon doonaan su'aasha ah waa maxay stroke iyo waliba sidee loo saaraa farsamadan sahlan ayaa loo saaraa stroke muuqaalada adigoo isticmaalaya software-ka la yiraahdo Premiere Pro haddii taa daawashada ugu horreysay muuqaalka la saar sida sargarayso saaxiibada kale u gaaro sidoo kale channelka subscribe saaraysi kugu soo gaaraan muuqaaladan iyo muuqaalada kale xigo kuma hadsani daawashada